kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa garoonka Jariiso degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir waxaad ku soo dhawaataan tabin ciyaareedka kulanka u dhaxeeya kooxaha kubadda cagta ee Midnimo Football Club iyo Jasiir Sports Club. Hodson waa paasay Taadir Olio gadaal ayaa kubadda loo furay waa kan Ayman waa kan laacibka lambarka 14 Nadir Ali نذير لعيار يريس نذير أكين نذير دابعس في عن أوبوبوي جول يبر وكان كوي قبتين عيار تويلك وعدكم بدأ عكتاي مدنمو لاعب كدوان قالكا كلن كيس ووري وريالك الصومالي بريمير ليج كلن كيس ووري وعدكم بدأ عكتاي مدنمو وصفتو ayuu gaaray shabaqa laacibka la yiraahdo Hodson Mwamba Hodson ayaa lagu magacaabaa waxa uu dhashay dalka Uganda waase kulankiisa ugu horeeyay horyaalka Soomaali Premier League ee kooxda kubadda cagta Midnimo waneel ayaa sheekadu noqotay Nadir ayaa kubadda soo dhisay isaga meel fiican kubadda ka siiyay labada difaac ee dhexe kooxda Jasiira ugu dambeyntii gool ayaan waa tufay laakiin way isku sii saray waneel Midnimo kan ku ay qabteen gool iyo baraya sheekada ka dhigeen gool iyo bar hogaamiyaasha kulankan Midnimo ayaa noqotay waxa uu ahaa gool si wacan looga soo shaqeeyay Nadir ayaa kubadda ku soo dhex qaatay meel fiican ayuu kubaddaasi ka siiyay saaxiibkiisa Hodson waneel ayaa sheekada ugu dambeyntii noqotay hogaanku ay qabteen ciyaartooyda kooxda Midnimo Jasiir Sports Club waa lagu bilaabay dhaxda kubadaasi laga helay waa kan Franco may offside garab dhaaf ayaa laga dhigay one touch ayuu ka dhigay garab dhaaf ama offside ayaa laga dhigay waxay ahayd kubad uu golay Abbas taa uusan arkin shabaqu ka dhex arkay laakiin garab dhaaf ولي شاكد جول يبر عيران كلي هذا فرانك مال في عنا ياكو بدل قسي هالمرة ياكو بدل كدقي لكن سكرب ضعف يا لك دقي فرانك يا وتاجن فريقي كان عملات كان عرتا فرانك قول يا عباس ياكو بدل قبصدي قول يا عباس يا كوبا قبسده فورتور وكان أماري هودسون تونيل كور كل بعض عيارته يدلين عيارته إذا كوعدك وبدأ عقته Midnimo فوتبول كلاب هودسون أياس يدلين جول كل بعض عيارته كوبد جيس كلا كيني kulankiisa ugu horeeyay horyaalka Soomaali Premier League kulankiisa ugu horeeyay kooxda Midnimo 2 gool 16 daqiiqo 2 gool yeber ciyaartooyda kooxda Midnimo waxay u soo aan guushooda ugu horeysay horyaalka Soomaali Premier League sanadkan tani sanadkii hore ma aysan guuleysan labada kulan ugu horeeyay horyaalka kulanna barbardhac kulanna waa laga badiyay laakiin Hodson oo kamid ah ciyaartooyda ajaanibta sanadkan ku cusub goolkii laga soo shaqeeyay waa la soo karoosay garab ayuu dhac ku siiyay iyadoo ciyaartooyda daafac qaar ay offside u maleynayeen Ayman ayaa kubadda tuuraya Ayman kubadda waa u dhex geliyay trainer goolka saddexaad ee ciyaarta goolka saddexaad ee ciyaarta Ayman ayaa dhexda ka toogtay unbelievable waa aamni la isaga aamni la dhexda ayuu ka toogtay xitaa dhexda la soo dhaafaya gool ayaa kooxda Jasiir Sports Club banaanku joogay 3 gool yeber Midnimo ayaa ku hogaaminaysa Ayman ayaa sadaliyay goolka saddexaad ee ciyaarta
saddex gool iyo eber waa kan halka uu ka tuuray ayman oo ugu dambeyntii iyadoo cidna aysan taaban shabaqa ayay gashay saddex gool iyo eber kubadda markan qadka dhex ayay taallaa waa kan sheekeeye meel fiican saadaq gool ayaa kubadda penalty rigoore penalty ayaa loo dhigay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee midnimo football club goolkii afaraad ee ciyaarta miyay dhalin doonaan bakarow goolkii afaraad ee ciyaarta bakarow ayaase shabaqa gaaray afar gool iyo eber ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee midnimo gees ayuu ka dhigay bakarow yaase shabaqa gaaray oo dhaliya goolka afaraad ee ciyaarta meel fiican saadaq waa kan rigooradii penaltigii laacibka la yidhahda bakarow afar gool iyo eber isku soo noqod wanaagsan daawadayaal qaybta labaad ee ciyaarta u dhexaysa midnimo iyo weliba jasiir sports club ayaa si anba qaadi doonaa afar gool iyo eber ayay ka kacaysaa midnimo ayaa ku hogaaminayso jasiir sports club ayaase looga horkacayaa eghaba gool hayaa lagu ku soo celiyey maxamed khaliifa kula dagaalamay frank ayaa kubaddeesa markan franco birta ayay kubaddaasi ku dhacday waxay ahayd fursad kaloo dahabiya diilinta ganaaxa bannaankeedu ka soo toogtay cilaanka la yidhaahdo frank waa kan halistii uu sameeyey halkaasuu kubadda ka qaatay shabaqa ayuu fiirsaday kubaddii uu tuurayna golaya cabbaas intee dhaaftay birta ku dhacday golaya cabbaas ayaa kubaddeesta daqiiqadaha ugu dambeeyey ciyaarta ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay afar gool iyo eber waxaa ku adkaadeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee midnimo football club jasiir